adduunweynaha aynu ku nool nahay heerka isticmaalka tiknoolajiyadda waxay kaga jirtaa qayb kasta oo nolosha ka mid ah iyadoo marba mar ka dambaysa ay ku tilaabsanayso horumar aan qiyaas lahayn Soomaaliya in muddo ah way adkayd in adduunka aynu tiknoolajiyad wax kula qaybsano ama aynu kaba hadalno sabab la xiriirta wadanka oo dagaal sokaya ka soo kabanaya oo qasabtay in hardan loo galo badbaadinta nolosha sanadihii u dambeeyay Soomaaliya waxa ka yagleelmay ganacsiyo fikrado iyo tilaabooyin fara badan oo tiknoolajiyadu ay saldhig u tahay bulshada Soomaaliyeedna ay fahmeen ama ay ku qasbanaadeen la jaanqaadistooda dhalinyaradii hadda bariga hore maartay oo maartay waqtigooda ama maartay lacagtooda gelin jiray barnaamijyo maartay oo dukaamada iyo waxa gelin jirta hadda si casriyaysan ay maartay wax oo soo baxeen walin ma week kasta hadda maartay si culus oo social media waxa ka maalin kasta maartay waxa la soo adeeg cusub maartay lagu soo kordhinayo adeeg cusub maalin kasta hadda maartay social media fiiris maalin kasta adeeg cusub hadda maartay la socotido maartay dhalinyarada aad maartay ku xiran tahay waxa arkaysa adeeg cusub maalin kasta la furayo so waxay taas ku tusinaysaa maartay in ay dhalinyarada ay maartay ay farfacon yihiin technology-ga dadka ay fahmayaan sidoo kalena dadka iyagana maartay oo technology consume garay iyagana ay fahmeen adigoo maartay gurigaaga joogto in maartay adeegaaga heli kartid adoo maartay gurigaaga joogto in maartay wax kasta maartay adeeg markaa u baahan heli maxaa sababay in xilligan dadku fahmaan muhiimadda isticmaalka adeegyada ay tiknoolajiyadu lafdhabarta u tahay iyo in dadku ay ku dhiiradaan ku adeegashada habka online-ka waxaan wax ka weydiinay asaasaha shirkadda wax ku iibisa badeecooyinka qaab online ah jiilka yar ee dhalinyarada ah oo tiknoolajiga la soo korayo oo fahamsana aad u badan waxa kale oo jirta iyadana jiilka dhexe oo runtii qayb weyn ka ah kuwa dhaqaalaha haya maamula ah ayagana waa dad tiknoolajiga ku xiran labadaas jiilo iskaashanaya waxay saamixaysaa in dad badan adeegeena oo maalin kasta uu gaaro taasa marka fursado keento marka runtii isticmaalkana dadka ay isticmaalaan xawliga ku socda anaga xitaa waxaan sabab marka hore serverka aan isticmaali jirnay oo limit ahaa waxay noqotay inaan markii afraad u guureyno inaan server ka weyn oo ka culays badan oo xaddiga dadka soo galaya kumanaan ah oo deeqi kara inaan u guurno inkastoo ay muuqato horumarka tiknoolajiyadda Muqdisho shirkadaha caalamka laga yaqaanana ay soo saldhigteen haddana wali waxaa jira caqabado dhanka bulshada ah oo ku aadan aaminaadda iyo kalsoonida Somali Deals waa shirkad online ah oo ka shaqeysa inay suuq geyn u sameyso guriyasha iyo dhulalka beeca iyo kiroonteedaba waxaanu leenahay website www.somalideals.com Facebook ayna account ku leenahay oo aan meesha ugu weyn marketingkeena ka sameynay tahay midda labaad barnaamijka oo mujtamaca horta mujtamaca horumar xoogan jiro qof kasta Facebook account uu leeyahay dabcan ka dhul aan soo dhigno kale dadka dhulka mise guriga beeca ah online inta ka arkaan inaga la soo xiriiraan laakiin wali caqabada jira caqabada waxay tahay dadka Soomaalida kalsoonida lagu qabo in information online ka xoogaa shaki xoogan baa ka jira dad badan dad siiba dadkii hore marka imaato in intayna la soo xiriirnaa waxaan rumiyaa wax jira miyaa dhowr mar ayay nagu dhacday midda kale Soomaalida badan dad wax aqrisan marka guri aad soo dhigaysid mise dhul aad soo dhigaysid dhulka meesha uu ku yaalo qiimihiisa sharcigiisa cabirkiisa intuu laamig u jiro information-kaasna soo dhigaysa qofka marka Soomaaliga waxa kaga la roon inuu message ku soo diro mise inuu ku soo waco intuu akhrin lahaa marka caqabadaha jira Soomaaliya hadda waxay noqotay example technology waxa ku firan baa sida lacagta la isku xawilo waxaana la cashless society in ka guurna lacagtii gacanteeda u guurneed midii telefonkeed dabcan markii la soo bilaabay barnaamijyada EVC-ga iyo dahabka ay ka caqabadaha mareen shirkadaheena online ka ku shaqeey caqabadaha culays ayaanu marina oo xagga mujtamaca aaminaadiisa iyo la shaqeyntiisa laakiin waqtiga soo hadda ku soo socda imaato kulli mujtamaca dhan waxa la online shopping in badeecada online laga gato in dhulalka online laga gato xogta information online laga helo waa la gaari doonaa haddana meel fiican ayay marina insha Allah ta'ala meel fiican oo soo sanadkii aynu soo dhaafnay Muqdisho waxa lagu qabtay shir lagu soo bandhigay sidoo kalena lagu tartansiinayo shirkadaha tiknoolajiyadda ka shaqeeya oo qaarkood ay dhalinyaro abuureen waxaana ka soo qayb galay dad kor u dhaafaya 4,000 oo qofood oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib taas oo muujinaysa sida bulshada Muqdisho ugu hamuun qabaan ku tilaabashada hanaanka tiknoolajiyadeed waa kan mar kale Caawil Axmed oo kamid ah dhalintii xilliga horboodeysay bandhigii Muqdisho Tech Summit Muqdisho Tech Summit 2019 wuu ka bedelaan doonaa wuu ka casriyaysanaan doonaa kii hore
dad oo kala nooca iyo maaragtay oo fikrado kala nooc leh maaragtay waxa ka soo qayb gali doonaan waxaan rajaynaynaa in intii ka soo qayb gashay 4,000 in ka badan inay ka soo qayb gasho kan 2019 sidoo kale waxaan rajaynaynaa dadka partnerska oo aan maaragtay ka wada shaqeynayna programka dad tiro yar ay ahaayeen oo maaragtay hadday noqoto xagga fanka hadday noqoto iyo xagga programka qayb galay noqoto way yaraan hadda laakiin already dadkii way arkeen shaqadii maaragtay tech summit-ka maaragtay qaban 2019 marka waxaan rajaynaynaa partners tiro badan inay maaragtay ay ka soo qayb galaan dhalinyaro tiro badanna because sanadkii la soo dhaafay tiradii startups waxa laga yaabaa inay 15 dad ka soo codsadaan weeraan 50 soo codsaday waxaan rajaynaynaa sanadkan in maaragtay boqolaal ay soo codsadaan oo aan tiradii 15 ka tartamaysana maaragtay aan ka kicino maaragtay weeraan 50 aan ka dhigno saddexdii sano ee u dambeysay Muqdisho waxaa si rasmi ah uga hana qaaday dhowr isku day oo lagu abuurayay ganacsiyo iyo shirkado si guud ku shaqeynaya tiknoolajiyada taas oo sawir guud ka bixinaysa in tilaabo la qaadahay kaliya ay naga xigto in adduunka halka ay ka gaarsiisan yihiin tiknoolajiyada marka laga eegayo sida ay uga kaabtay dhaqaalaha siyaasadda horumarka bulshada iyo waxyaabaha la midka aynu inana gaari karno si dhow dhaqana Cumar Goobjoog TV Muqdisho.